hornii u sheegay wuxuu ahay aabo fiican oo ciyalka si fiican u dhaqaaleysto ayada laakiin maxay ku fikirtay waxayba go'aan ku qaadatay hadduu sidaan sameeyay in uu ku shalay doono tilaabadan uu qaaday Charles shaqadiisu iska sii watay reerkiisana wuu biilan jiray sidii horeba uu ahayd ilaa wuu xanaaqsiyaa nin wax laga haleeyo waaye ayadan maba isdareensiininbo waxaasoo dhan wayba ka gudubtay waxna ma aysan weydiin maxaa sidaan dhan u samaysay ma aysan dhihin kadib waxay ahayd go'aanka ay qaadatay in ay sumayso suntaasoo ah in ay kis u siiso waayo waxayba go'aan ku qaadatay in ay intuusan dhiman ka hor ay dunida ku cadaadiso muxuu ka haliyay waxbo kadib waxay sameey jirtay cunto ama shaah ama biyo waxay siineysaba in yar ugu sameey jirtay haday ku badiso isla markii ayuu dhimanaa ayadan ma aysan rabin in uu hore ka dhinto dhowr bil kadib markay sidaa u sameynayso 3 bilood ama 4 bilood ayay waxay tiri waxaan u baahanahay in aan caruurta qaato oon aado guriga aabahay waayo aaba xanuunsan waa inaan soo salaamaa taasoo asiga la yaabay muxuu sabab u la yaabaa ilaa qoftaan qorshe ayay wadataa qorsheed ayaa sidaa ahay waayo muddo dheer ayay labadood waalidiintooda ka soo tageen meel laguma ogeen haddana waxay la soo istaagtay aabayaaba xanuunsan oo caruurta soo tusaa wiilkiisa iyo afarteedii hore shantaba hore u kaxeysatay sanadka markuu ahay 1972 bilowgii Mars waxay soo aadsatay guriga waalidiinteeda 4 maalin kadib dib ayay u laabatay waxay u soo laabatay xaafadii odigeeda laakiinse ma aysan aadsanin intay aaday waxay aadsatay xaafad lagu magacaabo Verbaliso waxay ka kireysatay qol yar oo hotel ah kadib ciyaalkay waaweynay ayay seexsatay kii yar ayay soo qaadatay ayadoo soo baxaysa waxa ku soo kacday gabadheeda weyn wixii su'aashay hooyo intee aadaysaa waxay ku tiri hoolo ayaan soo qabsanayaa walaalahaaga si ilaali haddii wax gaaraanne adiga ayaan ku ciqaabi doonaa kadib caruurta markay iskaaga soo tagtay ayay soo baxday waxay soo martay maxatada basiinka ama meesha gaariga basiinka loogu shubto waxay soo shubatay shidaalkaasoo la ekaa 2 jirgaan walba wuxuu qaaday 20 litir kadib waxay si toos u soo abaartay guriga uu ku noolaa odigeeda Charles kadib waxay sameysay gaariga ay banaanka istaajisay cunugii yaraan gaariga ugu soo dhex tagtay waxay hore u soo qaadatay 2 jirgaan oo shidaalka ahay waxay si toos ugu soo gashay qolka odigeeda oo jiifo Charles aad ayuu tacbaan u ahay waayo jirkiisa waxay ku jirto sun oo muddo badan la siinayay wuuba iska hurdaayay kadib waxay soo qaadatay qori ay ku ugaarsi jireen oo guriga u yaalay xabad ayay ku dhufatay muxuu ka haleeyay ma ku filnamiya iqaabta ay marsiinaysay asigoo 24 saac u shaqeynay ayad iyo caruurteeda ayadan ee lacagta wixii doonta ay ku sameeynayay ma ku filnaaweysay yaani hal maalin ay ku qadarin xataa aabaha guriga ma ku filnaaweysay waayo qoftan waa danaysato aad iyo aad u xun markii dishi kadib waxay sameysay meedkiisa ay boorso ku xirtay hadana waxay sameysay basiinkii ay wadatay ku shashubtay way daartay wayna ka tagtay asigoo hulcaayo cunugii yaraayo shaarac ay ugu soo tagatay gaariga ku dhex jiray hore u sii qaadatay caruurteedan way sii martay waxay si toos u aaday guriga waalidiinteeda Kentucky Linda ayadu waxay isku haysataa qof aad u aqli badan taasoo booliiskeeda ogaa dooninbo loogu maleeyo ninkan inuu asi isdilay ayadana ay bari ka tahay laakiinse meesha ay ka soo tagtay ay waxay ugu soo tagtay cadeemo fara badan kadib markay qorsheysay ninkan in loo maleeyo in uu isdilay asiga laakiinse booliiska markay timaaday ugu horeenba waxay arkeen ninkan in la dilay waayo ninkan waxa lagu qorsheeyay basiin waxa lagu xiray boorso qof isdil ilaa boorso isku mixiri karo kadib basiin ayaa lagu shisho waa lagu daaray asiga meesha uu ku xiran yahay basiin ma isku shubi karo booliiska waxa uu cadaatay in qofkan la dilay haddana sidee ugu cadeyn karaan in ay dilka Linda ka dambeysay taas waxa cadeysay baawurka ay wadatay cagiisa ayaa waxa lagu helay guriga iridiisa waayo waxaa la rabay 4 maalin ka hor Linda in ay xaafadooda soo jirto ma ahayn baawurkeed inuu meeshaan yaalo kadib haddana waxaa sii cadeeyay qolada ay basiinka ka soo gadatay kuwaasoo sheegeen habeen bar inay naagtan u timid 2 cag oo
basiin ay ka iibsatay saacad kadibna oo dhacay dilkii Charles kadib haddana waxay tageen booliistii hotelka ee degtay isla hotelka talaajada lagu iibiyay casiraadka dhabarkiisa ayaa waxaa lagu arkay qorigii lagu dilay ninka kadib qoladii hotelka ayaa la wareystay waxaa lagu yiri ma taqaanin qofkaas ayagii ayaa sheegeen Linda iyo 5 caruur in ay habeen meeshaan deganaayeen waa isla habeenkii uu dilka dhacay waqtiba ma aysan ku soo qaadanin booliiskii in ay soo xiraan Linda waayo waxay ku heleen cadeemo fara badan kadib waxaa la ogaaday in meedka jirkiisa ee suntaas oo waqti dheer la sii laga helay taasi waxay cadeynaysaa qofka kula nool mar walba cunto ku siinaayo oo mar walba ku ogaanayo Soomahan taas cadeen buuxda ay u noqotay in ay Linda soo xiraan isla waqtigaas muddo ma aysan ka qaadan haddana in ay maxkamad saaraan Linda laakiinse hal mar ma aysan qiranin ninkan inay waxaa la soo saaray maxkamadii ayadoo lagu tuhmiyay in ay geysatay dil bareer Linda bilowgii October isla sanadkaas ayaa waxaa lagu xukumiyay xabsi daa'in xabsigaas muddo dheer wax damiin aan lahayn Linda wax aan micno lahayn ama naf loo gooyin ay naftii odigeeda u goysay taas ay xukun dheer haddana u martay ayadoo marna ka fikirin caruurteeda iyo maxaa soo wajihi doono sidee ku kori karaan waayo ninka wuxuu ku mutaystay dilkaas waa kastiyar uu xanaaqay oo go'aanka uu qaatay wax weyn ma uu soo sameeyay in kaamada deen laga sii bisu u diiday laakiinse ayada arintu way weynaysay wali ayadoo dambiga sii lahayd ay ninkeedii naftiisii meesha ku goysay caruurteedii uma aysan u nixin sida horabni ugu sheegay wax walba ayada isla jecel inkastoo ay doqonnimo u dheeraatay tookadan Linda waxaa lagu xiray xabsiga lagu xiray dumarka oo ku yaalo Indiana Linda 2 sano kadib ayadoo meelaha iska maraysa darbiyada iska fiirinayso ayaa waxay si kiis ku aragtay in staff joogin oo wax ilaala meesha lahayn kadib waxay ku fikirtay tani waa ku fursad ee darbigan ka bood ee baxso Linda darbigii ayay siligii ayay ka booday ayadoo dhaawac badan leh oo dhiig badan ka daayay sidii ku baxsatay 2 sano ay xabsiga ku jirtay marna ma aysan ku fikirin mar inay meesha ka baxsato waxay fursad ayaa soo martay fursadiina way ka faa'iideysatay markay xabsiga ka soo baxsatay ayadoo dhiig badan ka baxay in badanna ordeyso ay waxay aragtay guriyo meesha ku yaalo guriyaas mid ka mid ayay gashay naag ayaa ku soo carartay tiri maxaa kugu dhacay naagta ku soo carartay ayaa waxaa la joogay nin u martay ninkaas oo lagu magacaabo William wuxuu ka yimid state Tennessee kadib ninkii ayaa wareystay wuxuu ku yiri maxaa kugu dhacay Linda ayadoo meermeerin ay si toos wixii ku tiri nin saaxiibka aan soo dagaalnay oo sidaan ii soo dilay ninkii ayaa u beerjilcay kadibna wuxuu yiri aniga waxaan ka imid xaafadda Boleski ma isi raacaysaa waayo xaafadaas dadka ku nool waxay ka yar yihiin 10,000 weyn is wada yaqaaniin oo ninka sidaan ku soo galay meeshaas ma kuugu imaan karo waxna ma ku gaarsiin karo Linda fursad ayay heshay waayo waxay ku fikirtay haddii ay meeshan sii joogto in ay shurdadii qabanaysa haddana ay dib xabsiga ugu celinayso ayadoo kala labeen ayay ninkii ku tiri dabcan waa ku raacayaa isla markii ninkii ayay raacday ee xaafadiisa ula tagtay muddo yar kadib ninkii ayada xiriir ayaaba dhaxmaraybo oo way isjeclaadeen ninkii maba isku dayinbo in uu dib u raadiyo nolosha gabadhan aanu wareysto ama uu weydiiyo intaba ma isku ما فتح راعين بو وحو سيد دربا كبورسدي gabadhii ma sheegin inay caruur soo dhashay ama ninkeedii labaad ee soo dishay isla ninkan ma ogo qoftaan inay hore u soo guursatay ee 5 caruur leedahay ninkeeda labaadna ee gacanteeda ku dishay ninkan wax war uma hayo ayadana maba aysan u sheegin bo kadib Linda mufaaji'o way isbedeshay waxay noqotay qof wanaagsan ninkeeda way caawi jirtay wixii ka shaqeey jirtay shaqooyinka aan loogu baahnayn in ay kaar bangi la weydiiyo la magaceeda saddexaan ma sheegi karto حتى اسكو مدين إني قاري سو بحثته أما إيه سميسته كاربندي وايو أنت سبحان الله وباهنا يا مجلس الدحان وحال أغاني قفك أيضا إيه تحي أيضا تاس قرنيسو أي وحي كشقي جرتي شقوين يرير معلنتي هبين كين وحي كشقي جرتي إسبيتالة سي أوهيسو إن دتك وايلة لعي هذا وحي كسو قادة جرتي كاش
xaafadii ayaa laga bartay kadib waxaa loo bartay qoftaan inay tahay qof wanaagsan oo reerkeeda dhaqanayso. Linda shaqooyinkaas yaryar waxay ku saacidi jirtay xaafadeeda waxay dhaqan jirtay gurigeeda. Linda waxay ninkeedii kula nooleed deganaan asiga xaggiisa laakiinse ayadu wax deganaan ma haysanin. mar walba waxay isleedahay goormaa ka shifmee oo goormaa lagu qabanaa. waxay dunida kusoo beerisay 2 caruur wiil iyo gabar ayadoo farxadeeda ay tahay ilmaheeda si nabad inay ku korsato haddana marna aan suurtoobayno cabsi iyo walwal waxay ka qabtaa maalin maalmaha kamid in loo celi doono jeelka oo la aqoonsan doono. laakiinse maxaa dhacay waxay isleedahay sirtaadan ku soco ilmahaaga korso kadib mar walba cabsidaas ayadoo ku jirto ayaa maanta waxaan dhacday in ay sirteeda ka shifanto. mar laga joogo 35 sano 2007 ayaa waxaa gurigeeda kusoo booqday askarigaas oo lagu magacaabo Joe Robinson. albaabku u istaagay kadib wuxuu yiri waqti badan ma ka qaadanayo waxaad ii sheegtaa sabirkaan ma taqaanaa. ayay isla markii wixii ku tiri haa waa aniga. ninka booliska inuu naxay ayuu yiri ma baqanaysid miyaa in lagu xiro. markaas wuxuu ku tiri haddii aan been kuu sheego maxaan ka faa'iidaa waayo fara ayaa haysataa hadda fara iga qaado farihii way islahaanayaan. marka sidaa darteeda ma raba inaan been kuu sheego. isla booliskaas waa wiil yar oo ku dhashay markaas xaafadda oo wiilkeeda aadan laakiinse qofta uu raadinayo sabirka uu wato kiiskaas uu hayaa wuuna ogyahay qof baxsaday oo la la'yahay 35 sano in ay tahay. laakiin qoftan isla markii hortiisa ku qiratay la yaab ayay la noqotayba maadaama Linda ay ku shaqeynaysay kaar la'aan magac la'aan xataa inay bangi samaysatay ay u diidineed in sirteeda soo baxdo. ayaa maalmaha kamid 35 intii lagu guda jiray ayaa waxaa dhacday in dad isdagaalaan dadkaasna ayad ay goob joog u ahayd. kadib booliskii meesha imaaday dadkii loo marqaati furayay ayay waxay kamid ahayd marqaatiyada meesha joogo. Linda hadda waa gabar aad u wanaagsan laakiinse ninkan booliska sidoo ku soo helay ayaa sidaas ahayd. booliskii ayaa waxay ka shakiyeen magacyada waxay la xiriiriyeen gobolkii ee dilka ku soo geysatay waxaa loo soo gudbiyay kiiskeeda oo buuxo. kadib sidii ayaa gurigeeda loogu yimid oo sabirkeeda loo soo qaaday loona tusay ayadana dambigeeda hore ayay ka qiratay oo ma isqarinin. waxay ku tiri haa qofkan waa aniga. kadib waa la xiray. sanadkaas la xiray Linda waxay jirtay 64 sano 35 sano ka hor xabsiga ee ka baxsatay ayaa dib loogu soo celiyay. shacabkii ay ku dhex nooleysay 30 sano oo gabadhan tustay wanaag aad u fara badan xataa aysan ku fikirin hal qof inay mar dhibaatayso intaasoo sano ayaa la yaabay arrintan. laakiin taas waxaaba ka sii darneed in ay mufaaji'o xun la noqoto labadeeda cunug iyo aabahooda. 35 sano dadkan wanaaga ee kula nooleen iyo magaca quruxda badan ee ka dhex samaysatay booliiska wax jixinjix ah ma aysan tusin waayo dilaa waa dilaa. qoftan dambi ayaa loo haystaa waxaan kaloo ay gadaal ka samaysatay ayaday u taalaa. Linda intay xabsiga ku jirtay stationka intay joogtay ayaa waxaa soo booqdeen saxaafadii si ay u wareystaan. su'aalihii la weydiiyay ayaa waxaa ka mid ahay waxaa tahay qof wanaagsan waan ku naqaanaa sidee ugu dhiirtay in aan ninkaaga disho. Linda way iska fogaysay dambigaas waxay ku tiri aniga ma dilin ninkayga waa la dilay laakiinse anaga ayaa dusha laga soo saaray oo la ii soo xiray kadibna waa soo baxsaday aniga nololaan samaystay noloshaasna taa aad taqaanin ama aad aragteen waaye. kadib waxaa la dhahay 5taadii caruur sidee 35 sano iyo 2 sano xabsiga kusoo qaadatay 30 sano sidee ciyaalkaagii aad marna la hadlin uguna maqneed ma aad ku fikirin miyaa mar un xataa ilmahaaga inaad aragtid. jawaabteed ayaa waxay noqotay ahaa waa jeclaa caruurteeda in aan arko ama aan maqlo laakiinse haddii aan tilaabadaas qaado aan waco caruurteeda waxaan ka cabsaday in aan gacmahayga isku xiro oo leesoo dabagalo kadibna xabsiga la ii soo celiyo. Linda kida way u soo laabatay xabsigii waayo waa qof dilaay. hadda murunka meesha taagan wuxuu yahay Linda ninka markay dishay ee nolol samaysatay waxay ku soo baxday gabar aad u wanaagsan. ma la dhihi karaa ninkaas ayada ma dilin waayo booliiska suntay baareen shidaalkii dadkay ka soo iibsatay ku cadeey qorigii la soo arkay xabadii kulli shay ma la dhihi karaa waa been cadowtinimada laakiin
laakiinse ay u qaaday ninkeeda ma u qalantay in ay ninkeeda nafteeda u goyso maadaama Linda cadeemo badan laga hayay oo haddana ay weli diidan tahay dilka ninkeeda adigu waxay kula tahay kumandiga noogu reeb haddii aad igu cusub tahay soo dhawow channelku waa channelkaaga subscribe star haddaa hore ila joogtid waa ku mahadsan tahay daawashada videogan leegta waa dhankaaga kumandiga ra'yigaaga ka soo baxso haddii aad ka heshayne ku qabo leegta waa loo baahan yahay inaad i caawiso haddaa jeceshahay share garay asxaabtaada la wadaag waa walaashiin si oo idin leh is xisaabi inta aan lagu xisaabin ka hor